بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قدوميها قلها شعبك برلمانك جمهورية فدرالك الصومالية، قدوميها قلها أقل كسرة برلمانك فدرالك الصومالية، رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية، رئيس الوزراء حلك ورجينيا حكومة فدرالك الصومالية، رئيس الوزراء كحجينك، وزيرada xildhibaanada labada aqal ee madasha ku sugan marti sharafka dhammaan marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaam, munaasabadani waxa ay daaran tahay xil wareejinta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre uu xilka kula wareegayo galabta xafiiska ra-iisul wasaarenimada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya isagoo kala wareegaya ra-iisul wasaarihii xafiiska uga horeeyay mudane Maxamed Xuseen Roble oo 21 ama 20 bilood ee la soo dhaafay dalka xukuumaddiisa hogaaminayay. munaasabadan haddii la yiraahdo way koobnaan doontaa, waxaana ay ka koobnaan doontaa ilaa iyo dhowr hadal jeedinood oo mas'uuliyiinta halkan nagula sugan ay jeedin doonaan. waxaana xigi doonaa in ay ra-iisul wasaaraha xafiiska banaynaya iyo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalku ay kala saxiixdaan dokumentiyada xukuumadda ee la wareejinayo oo nuqulo ka mid ay halkan ku saxiixi doonaan, iyadoo ay goobjoogna mas'uuliyiinta kale ee golaha shacabka ay ka ahaan doonaan haddii la yiraahdo. marka hore waxaan rabnaa inaan ku bilaabano munaasabadeena aayadaha quraanka kariimka ah. waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo wasiir Cumar Cali Roble, wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, oo hadal yar oo koobanna ku dari doona haddii la yiraahdo oo guubaaba ah ka hor intaanaan bilaabanin khudbadaha. soo dhaw wasiir. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدوميها برلمانك جمهورية فدرالك الصومالية، قدوميها أقل كسرة رئيس الوزراء جمهورية فدرالك الصومالية، رئيس الوزراء هوري جمهورية فدرالك الصومالية، رئيس الوزراء كحجها قوله وزراء كسوق قيب قليالك شرفت له مرتدى قيب هذا كلا دوان هل كان كسوق قيب قلي بهذا الصحافة دا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إلهي وحونا أمره جل جلاله dadka alla aaminsan oo alla rumaysanow alla adeeca, rasuulkana adeeca. ilaa nabiga marba haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala la sheego nabigaynu wuu ku lamaansan yahay. laa udkaru ilaa wa tudkaru maci yaa rasuula allah, ilaah xadiidulqudsi ku dhahay subxaanahu wa tacaala. marka alla adeeca, rasuulkiisa adeeca, wa ulil amri minkum, madaxda oo adinka alla idinka soo saarayna adeeco u leeyahay alla subxaanahu wa tacaala. fain tanaasactum fii shayin, haddii wax uun lagu murmo, faruduuhu ila allahi warasuuli, dastuurka rabbaaniga ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ou noo soo dejiye ku laabta ee asigaa dib u egow leeyahay alla subxaanahu wa tacaala. in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir, haddaad alla aaminsan tihiin waayo taas. maxaa loogu dabamariyey daalika khayrun wa axsanu ta'wiila. waxayna faraysaa aayaddaasi ulul amriga in la adeeco lagana dambeeyo waa darajo isku xigta. alle ayaad ka bilowday, rasuulkaad ku xujisay, qofka ulul amriga maalintaa ku ahoo talada aad u dhiibatayna waa qofka darajada saddexaad oo kugu xigo. nabigana wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam: man adaacanii faqad adaaca allah, qofkii aniga adeeca alla ayuu adeecay. waman casaanii faqad casa allah, qofkii aniga caasiyena alla ayuu caasiye u leeyahay. waman adaaca alamiira, amiirka madaxda inin ah qofkii adeeca faqad adaacanii, anigooba i adeecay.
ومن عصى الأمير فقد عصى الله جل شأنه قفكي أمير كاس عاصينا أنا أيوة عاصي وليه نبينا عليه الصلاة والسلام ولذلك لما وحنا قال الدنيا إن مدحنا كرامينه كدم بينه شرفنا تلادو ذي تصالح هذا كشقينه أنت أيكو حق أيكو تاجهنا أن كنا أن أيك أدعنا أي واجب نجواه نبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أتمد وعيكو ترى رسولك الله بل كورهن هدي أمير أو دبعتنا جيسنا أو أن سان ربنا وحوم معمولين أو قارت ناقل بل كورهن كذا كيف عناية كيف ما يصير لقاه وأنا يار ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأدعو حنتي ضرب حقاته هناك وقراعه وإن أتقدم بيساهولي عليكم بالسمع والطاعة ولو تأمر وإن تأمر عليكم عبد حبشي وحنا قال ربا سلطانك أن بقفك مدحضة إن احترامه لأن سلطانك وظل الله في الأرض وقفك الشرف فيتك هلك أجوغا ومن أكرمه فقد أكرمه الله ومن أهانه فقد أهانه الله قفك كرامة يا سلطان كاس الله أيا كراميناي قفك أميركا إهانينا الله أيا إهانيناي وعن ربا الله بأرى إن المناسبة ماشنا نودكتو وحن أركي إن مدوين كان وحن عادي سنة مدح إن المر والبابا أن خلافنا كهرنا مادو إهانة دودا بره برشة كسوقفنا وحيسن أهين أن كدقنا وحي أهاينا وانا جاهد أن قارنا وحي قويا بدنت صباح هردة مركان كسوق عبها كان فيسبوك يدا إيه بلايا لوقبا أستيقظ هرا كفيرنا بلوح بكسوق كرنا يوحدرك مدحوين الجمهورية الفدرالية الصومالية دنتيا كقرن أو تركي إنت الله عرري دنتي وحيان باري نين الله هذا لنك الله هذا وحور ورهبلا وحن كشغال هبل كبلا نقارون نقدر نسيبونك ورهبلا وحن محطك فلها الإنسان محاكو كلفسان محدو سمينيسا وحويري waxaan ka rabnaa like iyo waxaan ka rabnaa followda iyo waxaan ka rabnaa view fiican aan ku helaynaa inta la fiirsanayo waxa iga socda lacag ma xisaabi kartid aniga baaga mudana taasan qootaho warbal fiiri يعني الرزق مكتوب من عند الرحمن لا من عند البشر يا حبيبي ارزاق الله يا بحي سبحانه وتعالى asiga ayaa ku arzaaqaya waxa xunka ah ihaanada sidka kuma siiga suxur noo soorsanay Soomaalidu tiraahdaa وعربنا رئيس الوزراء سوداو مدحدنا شرفت له سوداوادا حفلدان قيمها بدن وعربنا كليه رئيس الوزراء waxa wiilasheenay gabdhahayna ay maaragtay arzaaqda meesha ka raadinayaan wada arkaysa baaga mudanima halka la gashay dhalinyarada baaga mudada in laga saaro oo mashaariic loo abuuro shaqo abuur loo abuuro ayaa naga la sugayaa annaguna adinka waan in daacina hadii ilaahay idmo inta xaq ku taagan tahan maantana Soomaaliya maalinta ugu rajada roonaad ay maraysa ilaahay rajada soo rumay odayaal wadanka waxa madax ka naqday nasiib ilaahay uu sugu soo aadiyay gudoomiye aadan madoobe saaxiibkay ayaa ugu horeeyay waa gudoomiyihii laba mar ilaahay uu qadaray inuu gudoomiye baarlamaan u noqdo gudoomiyihii aqalka sare waa odaga ummadda Soomaaliyeed ba iska diiday inay iska tagtiraa oo ay mar waliba ay ag taagan tahay oo aad ogtihiin laba jeer ku soo laabtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweynihii tobanaad waay waa madaxweynihii mar labaad si xaq lagu doortay shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaankoodu si xaq ay ku doorteen waa nasiib Allah uu siiyay ra'iisul wasaaruhu waa nin aqoon-yahana waa nin qurba joogahayn oo aan wadanka waxa ka jira hadda ka bacd in la bar aan u baahnayn ku soo barbaaray ku soo wax bartay madaxdayna sharafta lahay maanta waa leen ku rajaweyn yahay rajadaasi haday meesha ka baxdo la ma qadar Allah haday meesha ka baxdo shacabka Soomaaliyeed rajadiisuna ceelay gashay caalamkuna waa naga niyad jabaya ra'iisul wasaare waxaan ka sugaynaa shucaarka aha Soomaali wada nabad Soomaali heshiis caalamkana la heshiis nin odayaha cid u soo martiyay markuu u yimid waxay ku yiraahdeen wareeruhu waa reer ma ciyalka yar waa reer marti u roone ما دعوا بينك كردونا بلسلك يسوع قبته وعنا ربنا إن شعاركاس أو هرجلا إروسن هرجلين وعن بالله بينا حكومة لو وريجي سار رئيس الوزراء مرة وسكنا ماشي كل وريجو آيات كلا وريجي سا تيم كيس وأنا نقف كتجنين قولي سو وزراء وقولا فرمتي احترام بدنا إني ماشي كسوة وذا قادنا ربنا لبن نحلها سين رئيس الوزراء لبن نحلها سين قفة كسين عبد الوهاب وقاس خليف عمر على الرب لحل بسينيس لكن لو هذا كلام سيريسا أريك بركي قولها وزارة مدحوينها لا دورتي أيها قولي وزارة وهريالة كفتم وحالي ور عمره
aniga waa iska aamusay ra-iisul wasaaraha maxaad u hadli weysa cumar waa adig hadal badnaay waxaan ku yidhi hadli ma karo markaba igu soo caariyaan iri aniga markaba igu jiiftaan siyaasad oo golo wasiirada ba iga dhawaataan cabdiwahaab ugaal khaliif wuxuu halhays iga dhigtay warninka markaba ku soo caariyow warninka markaba ku soo caari markaba soo wacaba waxaan iri warniyahow nin reer hebeloobu meelay ka imaan doonay lama hadlee xil uga dugtay lama gaarina u kaadi waxayna ka bacdi waxaan arkay duqiyo busto wato aniga agtayda marayo baagamudannimadii wehel iyo ah aad iyo aad u mahadsantihiin waayo aragnimada iyo khibradda odayaalka qaranka Soomaaliya aad leedihiin mar dhow inaad ka miro dhalisaan rajaynaa annaguna garbihiina nahay waa in garab taaganahay salaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وزير عمر علي روبلي أدي أي مهتسين هاي وحرجين إن كلمة حاجة لصق قبوا وقت كنا هاي درتيس هذا نوع حربنا نسود ويوري زار كحجين كحكومة فدرال كصوماليا مدن مهدي محمد جوليد خضر وكلمة سود وين تا كقرن سوى هل كان كلمة ديسا وكوبا وغيرها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قدوميها قولها شعبك مدن آذن محمد نور آذن مذوبي قدوميها أقل كسرة مدن عبد حاشا عبد الله رئيس الوزراء حكومة فدرال كصوماليا مدن حمزة عبد بره رئيس الوزراء حلك وريتشينيا مدن محمد حسين روبله xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada iyo marti sharafta kale dhamaantiin iyo bahda saxaafadaba waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu horreyn waxaan idinku soo dhaweynayaa munaasabadda xil wareejinta oo insha allahu tacaala maadaama xilligii casarka aan joogno koobnaan doonta mas-uuliyiin dhowr ah uun kelmadda munaasabadda ku habboon ay odhan doonaan haddaan jadwalka idin dul maro aniga kelmadda soo dhoweynta kadib waxaan ku soo dhoweyn doonaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo waxqabadka xukuumadda iyo xil wareejinta labadaa kelmadoodba ku leh kadib wuxuu ku soo dhoweyn doonaa ra-iisul wasaare xamse cabdi barre guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddoomiyaha aqalka sare ayaa kelmad odaytinimo odhan doona kadibna xil wareejinta ayaa labada ra-iisul wasaare samayn doonaan saasaa insha allahu ay noogu soo gunaanadmi doontaa haddii ilaahay yidhaa mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharafii ah inaan idinku soo dhoweeyo xafladda xil wareejinta xukuumadda federaalka soomaaliya oo maanta soo gebagaboysay 20 bilood haddayna 21 bilood ahayn geedi socod ah oo uu hormuud u ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo aan run ahaantii uga mahad celinayo hal adaygii iyo dhabar adaygii iyo adkaysigii uu sameeyey in dalkan ay ka qabsoonto doorashadaasoo si nabad ah inoogu dhacda geedi socod wuxuu ahaa shaqo adag ay inoo socotay haddana caqabadaheeda iyo dulqaadkeeda ballahayd anigu khaasatan si gaar ah ayaan ugu mahad celinayaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble fursaddii uu siiyey inaan dalkayga u adeego iyo dadkayga lana shaqeeyo muddadaa ku siman 21 bilood waxaan ku ammaanayaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble hagiddii iyo derdergelintii uu ku sameeyey doorashooyinkaas muddada 20 bilood ku dhowba iyaga qudhoodu socday waayo ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku yimid 17 Sebtembar heshiiskii in la qabto doorashadii dadbanayd ee lagu heshiiyey iyo hirgelinteedii taasoo muddadaas run ahaantii inoo socotay laakiin ku soo dhammaatay hab nabad ah oo dalka xasilooni iyo nabadgelyo uu u gudbo salka laga fadhiisto la saldhigo duruufiha adadkaana laga soo gudbo waxaan u mahad celinayaa guddidii qabanqaabada ee xafladda xil wareejinta oo aan anigu hormuudka u ahaa oo xubnaha golaha wasiirada iyo farsamo yaqaanka xafiiska ra-iisul wasaaruhu iyo madaxdiisuba ay ka mid ahaayeen si gaara waxaan ugu mahad celinayaa xogayaha iyo xogahaye ku-xigeenka faadumo iyo
xubnihii golaha xafiiska ra-iisul wasaaraha oo la shaqeeyey oo xafladdan quruxda badan run ahaantii maanta inooga shaqeeya soo agaasimay. waxaan sidoo kale si weyn u soo dhaweynayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo aan leeyahay ila soo dhaweeya. soo dhawow ra-iisul wasaare, ku soo dhawow xafiiskaaga, ku soo dhawow xafiiska ra-iisul wasaaraha. mudanayaal iyo marwooyin, guddigii xil wareejinta oo aan hogaaminayay howlaha ay qabteen oo qayb ka ah kulankan xil wareejinta, waxaa sidoo kale noo qabsoomay inay ku guulaysteen diyaarinta buugga xil wareejinta ee waxqabadka xukuumadda, warbixino guud iyo talooyin. sidoo kale waxa uu guddidu isku soo ururiyey in ka badan 25 dokumenti oo muhiim u ah geedi socodka dowladnimada, kuwaasoo ay qayb ka yihiin xil wareejinta maanta ee lagula kala wareegayo qayb ka ah. oo maanta haddii ilaahay yidhaha ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble uu ra-iisul wasaaraheenna ku wareejin doono. hawl fiican baa guddida usoo qabsoontay. waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo. shaqo fiican oo maanta runtii lagula kala wareego ayaa muddadaa koobnayd aan ku qabannay. waan u mahad celinayaa dhammaan guddida, wasiirada iyo howlwadeenadii farsamo yaqaanka xafiiskaba. waxaan leeyahay dhammaantiin guulaysta, wakhtigeenu ka faa'iidaysan doonaa. waxaan soo dhaweynayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo xilka wareejinaya maanta, mudane maxamed xuseen roble, si uu kelmadaha ku habboon halkan uga yidhaahdo. miyaan u tacsiyadeeyaa mise waan halbeeyaa labadeennii saaxiib oo marka maraakiibta kusoo cariyeen? waxaan is leeyahay waxay noqonayaan labada dhagood oo ugu maaragtay. soo dhowo ra-iisul wasaare. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaa ammaan iyo mahad gaar ah leh Allah subxaanahu wa tacaala oo maantay halkan isugu kaya keenay. gudoomiyaha golaha shacabka mudane aadan maxamed nuur aadan madoobe, gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi, ra-iisul wasaaraha xamse cabdi barre, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii mahdi guuleed iyo dhammaan marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay madashan xil wareejinta. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. waxaan ku faraxsanahay in hayaankii doorashada ee muddo dheer soo socday maanta gabagabadiisii iyo dhammaystirkii hay-adihii dowladda aan goobjoog u nahay gabagabadoodii. maadaama mas-uuliyadda dalka iyo nidaamka dimuqraadiyaddu ay tahay qor isku dhiib, waxaan runtii ku faraxsanahay in aan soo dhoweeyo kuna wareejiyo xilka ra-iisul wasaare jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre. waxaan hubaa in ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu u gudan doono mas-uuliyaddiisa si hufan oo dalka iyo dadka soomaaliyeed ku diirsadan hadduu alla subxaanahu wa tacaala idmo. waxaan mahadnaq ballaaran u gudbinayaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo runtii fursad ii siiyey inaan dalka iyo dadka soomaaliyeed u adeego muddo ku dhow 2 sannadood. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, golahayga wasiirada, ciidamada qalabka sida, howlwadeennada xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo shaqaalaha hay-adaha dowladda iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed taageeradii iyo dhiirigelintii ay goor kasta ila garab joogeen muddadii aan waddanka u soo adeegayay. waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa golahayga wasiirada oo runtii muujiyey dhabar adeyg iyo dulqaad xilliyadii adkaa ee uu dalku soo maray, kuna guulaysteen in ay waajibaadkooda shaqo
ee ay u hayeen shacabka Soomaaliyeed u guteen si hufan oo sharaf ku dheehan tahay sababtoo ah hadday caqabado ila imaan lahaayeen hawsha aan dalku u hayay siiba doorashada ma aysan hirgeleen. waxaa kaloo mudan in aan xuso mahadcelin ballaaran u jeediyo guddiyadii doorashooyinka ee heerarka kala duwan lahaa dadaalkii iyo dulqaadkii ay muujiyeen xilligii lagu guda jiray doorashada taasoo keentay in doorashooyinka dalka si nabad ah ay ku soo idlaadaan. xafiiska ra'iisul wasaaraha golaha wasiirada iyo dhammaan hay-adaha kale ee dowladda wuxuu waajibaadkoodu koowaad ahaa muddadii aan ra'iisul wasaaraha ahaa hagidda iyo hirgelinta doorashada dalka si nabad ah ugu qabsoonta. runtii inkastoo caqabado iyo khilaafaad siyaasadeed yimaadeen haddana allah subxaanahu watacaala wuxuu nagu guulaysiiyey in aan ka gudubno marxaladihii adkaa xaqiijinana doorasho dalka ka dhacdo iyo isbeddel si nabad ah ku yimaado taasoo suuragelisay xilwareejinta aan maanta u fadhino. sidoo kale xukuumaddeedu waxay ku guulaysatay in ay joogtayso adeega bulshada iyo dib u habeynta hay-adaha dowladda ee socday sida dayn cafiska iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha dowladda. barnaamijka xukuumaddeedu waxaa aasaas u ahaa geedi socodka iyo hufnaanta dowladnimada. xukuumaddaydu waxay diiradda saartay howlaha muhiimka u ah geedi socodka dowladnimada sida sugidda amniga, xoojinta dimuqraadiyadda, qabashada doorashada si nabad ah ku qabsoonta, horumarinta dhaqaalaha iyo ballaarinta adeegyada bulshada. waxay sidoo kale xoogga saartay wax ka qabashada iyo gurmadka xaaladaha abaaraha saameynta ay ku yeesheen dadka iyo dunyada Soomaaliyeed. waxaan ku kalsoonahay oo aan ku boorinayaa dhammaan howlwadeennada xafiiska ra'iisul wasaaraha in ay gacmo furan ku soo dhoweeyaan si mug lehna ula shaqeeyaan ra'iisul wasaare xamse cabdi barre iyo golihiisa wasiirada uu magacaabi doono. waxaan kaloo ka codsanayaa dhammaan xubnaha golaha wasiirada in ay u diyaar garoobaan xil wareejinta wasaaradahooda iyo soo dhoweynta wasiirada cusub. ugu dambeyn waxaan u rajaynayaa dalka iyo dadka Soomaaliyeed amni waara, xasilooni siyaasadeed iyo horumar nololeed. waxaan diyaar aniga ka shaqsi ahaan u ahay guubaabinta, talasiinta iyo la shaqaynta madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamse cabdi barre. waxaan rajaynayaa in ay ku guulaysan doonaan mas-uuliyadda baaxadda weyn ee loo igmaday horena u sii wadi doonaan geedi socodka dowladnimada Soomaaliyeed. waxaan jeclaan lahaa in aan halkan kula dardaarmo shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dowladda cusub in ay si aad ah ula shaqeeyaan, loona ilaaliyo, loona kobciyo. waxaan leeyahay dowladda cusub waa inay kobcisaa dimuqraadiyadda iyo xorriyadda si aysan ugu imaanin habacsanaan iyo ambad. waxaan ka codsanayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xasan cabdi barre in baaritaan lagu sameeyo ay ogaadaan dibandaabyooyinkii ku yimid doorashooyinka dalka iyo badqabkii dimuqraadiyadda iyo xorriyadda muwaadiniinta si aysan mar kale u dhicin ku takrifal awoodeed iyo damac shakhsiyadeed ee lid ku ah hanaanka geedi socodka dowladnimada iyo dastuurka dalka. waxaan kaloo jeclaan lahaa in aan halkan sida walaalkay wasiirka diinta oo waqaafka uu sheegay Cumar Rooble in aan halkan uga jeediyo shacabka Soomaaliyeed hal dardaaran oo muhiim ah. dalkeena waxaa ku soo badanaya dhaqamo xun oo aad iyo aad u liita haddana ku sii fidaya sida dad sheeganaya darajooyin ay ixtiraamka shacabka Soomaaliyeed u hayaan sida sheekh iyo aqoon-yahan. dhaqankan waa in ashqaas loo arko dad macquul ah ay caadaystaan in ay sameeyaan been abuur iyo dacaayado iyadoo carabkooda iyo qalinkoodu noqday wax la ijaarto oo hadba
qofkii ama kooxdii dan gaar lihi ay kiraysato waana wax ceeb ah dhaqankeenana ku cusub wax saxna maahan waana in laga waantoobaa marka dhammaan waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed dadka waa inay la hadlaan haddii qofkii sheekh sheeganaya haddii uu aqoon-yahan sheeganayaba sidoo kale waxaan jeclaan lahaa in aan yeelano dulqaad iyo adkaysi qof kasta oo siyaasadda looga guulaysto waxaa habboon in uu sugto waqti kale balse aanu maciin bidin waxyaabihii aan aragnay maalmihii lasoo dhaafay ugu dambeyn waxaan si niyad ah idinkaga codsanayaa inaad si hagar la'aana ula shaqaysaan ra-iisul wasaaraheena cusub mudane xamsi cabdi barre si uu u guto waajibaadka qaran waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan howlwadeennada xafiiska ra-iisul wasaaraha cid kasta oo ka soo shaqaysay maanta meesha aan fadhino munaasabadan oo igu horeeyo BS-ka iyo xogeeyaha joogtada iyo xogeeyaha joogta ku-xigeenka walaashay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan rabaa haddana inaan kusoo dhaweeyo ra-iisul wasaaraha cusub aad iyo aad u mahadsan tahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ra-iisul wasaarihii hore from now on xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo xafiiska banaynaya hadda inta aanan gelin kelimada uu jeedin doono ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane xamse cabdi barre waxaan rabaa in aan la sameeyo marka koowaad xil wareejinta marka si ay u dhacdo halkan ayay imaan doonaan ra-iisul wasaaraha cusub iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dabadeedna waxaa iyaguna soo istaagi doona hanti dhowraha guud iyo guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo marka ay saxiixayaan iyaguna goobjoog ahaan doona wax yar laakiin noo fariista waxaan rabnaa inaan podiumka usoo sikino halkan wax ka yar hal daqiiqo noo dulqaata raallin ahaada marka waxaan ka codsanaynaa ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble labaduba inay halkan noo yimaadaan iyagoo raalli ah inay halkan soo fariistaan guddoomiyaha golaha shacabka mudane aadan maxamed nuur hanti dhowraha guud ayaan isagana rabnaa halkan goobjoog ka ahaado uu soo istaago waxaa jiri doona oo aan rabnaa inay keenaan 3 documenti oo isku mid ah oo 3 nuqul oo kamid ah la saxiixi doono oo midkiiba uu 22 ka kooban yahay nuqul qaar kamid ah howlwadeennada xafiiska ayaa keeni doona halkan halkan ay istaagi doontaan raalli ahaada idinku guddoomiyaha iyo hanti dhowraha waxaan rabnaa in loo keeno marka nuquladii waxay ka kooban tahay mid kastoo kamid ah laba meelood laga saxiixi doona waa 3 nuqul oo isku mid ah marka ra-iisul wasaareyaasha ayaa saxiixi doona guddoomiyaha iyo hanti dhowrahana dushay kala soconayaan haddii alla yidhaahdo
howlwadeennada fadlan halkan ka qaada dokumentiyada ay ra-iisul wasaarayaashu saxiixeen waxaa ugu muhiimsan ama halkan ku qoran oo ay ku jira waxaa ugu muhiimsan sharciga shaqaalaha rayidka ah number 11 waxaa ka mid ah sharciga howlgabka iyo gunooyinka waxaa ka mid ah sharciga marin raaca tababarka maamulka iyo shaqaalaha dowladda waxaa ka mid ah tirakoobka shaqaalaha rayidka ah tirakoobka hantida qaranka waxaa ka mid ah qoondada miisaaniyadda 2022 dastuurka ku-meel gaarka ah ee dalka warbixinta ku saabsan qiimeynta dastuurka ku-meel gaarka ah ee dalka qorshaha horumarinta qaranka waxaa kaloo ka mid ah qorshaha xilliga kala guurka ah baarista warbixinta maaliyadeed ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sanad maaliyadeedka December 2022 warbixinta sanadlaha ee baarista hogaansanaanta sharciga sanad maaliyadeedka dhammaaday ee 30 December 2020 sidoo kale qiimeynta khatarta qaran ee lacagaha la dhaqo iyo maalgelinta argagixisada waxaa kaloo ka mid ah sharciyada ama dokumentiyada halkan ay madaxdu ku kala saxideen ama ay kula kala wareegeen warbixinta maamulka maaliyadda iyo tala bixinta ku aadan guddiga maamulka maaliyadda ama Financial Governance Committee Advisory aad iyo aad ay u mahadsan yihiin marka madaxda kale way noo fariisanayaan waxaan rabnaa inaan soo dhaweyno oo uu kelmadiisa jeediyo haddii la yiraahdo ra-iisul wasaaraha laakiin waxaan rabnaa inaan fasaxno oo ay noo fariistaan ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble guddoomiyaha golaha shacabka iyo sidoo kale hanti dhowraha guud intaba ra-iisul wasaaraha naftirkiisa hal daqiiqo ha noo fariisto si aan podiumka ugu sad garayno maadaama meeshii saxiixa lagu sameeyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قدوميها قولها شعبك قدوميها أقل كسرة رئيس الوزراء محمد حسين روبلة رئيس الوزراء كحيينكا رئيس الوزراء هو رعضان وحكى عبسنا يعني إنه إلى دربي ويقصد دمي بركة رئيس الوزراء هنا xubnaha golaha shacabka halkan fadhiya aqalka sare golaha wasiirada inta kale cid walba magaca iyo maamuuska ay meeshan ku fadhido dhammaantiin ayaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan rabaa marka koowaad inaan u mahad celiyo ilaahay subxaanahu watacaala uma waxaan u mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya injineer maxamed xuseen roble iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo golaha wasiirada iyo shaqaalaha kala duwan ee xafiiska golaha ra-iisul wasaaraha runtii ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble wuxuu soo shaqeeyey xilli aad u adag oo dalkeena ay ka jiraan khilaaf siyaasadeed oo dhib badan runtii kaas oo qaatay muddo wuxuu dhaxlay aragtiyo kala duwan iyo dadkii siyaasado kala fogfog oo runtii markaas halis ku noqon karay degenaanshaha iyo in dalka ay ka dhacdo doorasho xilligaas adag runtii dad fara badan oo laga yaabo inaan anu ku jiray
waxaan u arkaynay inay aada uga adag tahay prime ministerka in uu handal gareeyo ama uu hago barnaamijkii doorashada ee runtii aadka loogu kala fogaa. waxaan aada uga baqaynay inuu ku barbariiqdo oo asaga oo dhaawacyo badan qaba uu xilligan soo gaaro. wayna dhici kartaa in xataa talagalku wax mararka qaarkood siyaabahaas uu ahaa, laakiin tusbaxaa yar ee uu haysta iyo ducooyinku waxay keeneen in uu ilaahay ka samato bixiyo oo asagoo hero uu ka baxo galabta xafiiska. marka waxaan aaminsanahay in uu mukhlis ahaa oo ikhlaas iyo allabari iyo dadaal inuu uga soo gudbay marxaladdaas dhibka badan ee qodxaha badnayd ee runtii aan aada uga wada cabsanayna kulligeen. isaga iyo tiimamkii la shaqeeyey iyo odayaashii marka dambe majaraha u qabtay labada aqal runtii iyo saraakiishii amniga iyo dhammaan intii ka shaqaynaysay waanu mahad celinaynaa. waxaad dalka ka soo gudbiseen marxalad aada u adag oo xusuus runtii ciddii ka naxaysa dalkan xusuus ku reebaysa mararka qaarkood sidii dadkeenu ay u niid jabsanaayeen iyo sidii ay halista u gashay Soomaaliya. waxaa la yidhaahdaa dadka Soomaalidu ma xusuus badna, markuu wuxuu saa u dhammaado dadku waa isku wada miduun. kii dadka eber ka dhigay oo laayay iyo kii dadka badbaadiyey 2 bilood kadib isku mid bay noqonayaan. adduunkana sidaas kama jirto. qofku wuxuu leeyahay sijilli iyo document lagu yaqaano leeyahay qofku iyo record. waxaan rajaynayaa mudan ra'iisul wasaare in markan Soomaalidu xusuusteedu ay yar dheeraan doonto oo laga xusuusnaan doono. waxaan ballan qaadaynaa xukuumaddan intay jirto in aan dadka ku xusuusino marar badan, siyaabo kala duwan inaan dadka kusoo hor istaajino, siyaabo kala duwan iyo munaasabado kala duwanna inaan kaaga xusno. marka aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa. mahaddaas runtii waxaan u celinayaa ra'iisul wasaareyaashii hore ee dalka. haddaan kooyay sheekadu maaha. waxaan waa cumulative iyo waxyaabo la issoo kor saarsaaray oo ninba maalinba meel ka soo qaadayo, ninba maalin keenayo. kuwaa meeshan soo galay iyada oo aan sidan ahayn iyo si ku dhow oo la wada degan yahay oo burbursan tahay oo aan kuraas oolin oo ayna dawladda ka jirin. waxbay ku bilaabeen, meel bay soo gaarsiiyeen. waanu mahad celinaynaa. kuwaa ka sii horreeyey oo Talyaani ka beddelayba oo Soomaali ka dhigay waan u mahad celinaynaa. qof kasta oo waddankan soo xukumay, especially prime ministeradii kala duwanaa ee naga horreeyey, kii qaada ku soo daray iyo kii kursi ku soo daray iyo kii xaashi ku soo daray, intaba waxaan leenahay waad mahadsantihiin. intii dhimatay allah u naxariisto, inta noolla guul, cibaado iyo caafimaad baan u rajaynaa. shaqaalaha oo PS-ku kow ka yahay oo runtii had iyo habeen mar walba u taagnaa in ay najixiyaan siyaasadda xukuumadda, iyagana waan mahad celinayaa. golaha wasiirada oo runtii dadaal badan galay oo qof waliba meesha uu joogay ka soo shaqeeyey, waan u mahad celinayaa. shacabka Soomaaliyeed oo runtii ku aaminay oo kula shaqeeyeyna waan u mahad celinayaa. wasiirkii hadlay saaxiibkay ahaa, wasiirka diinta iyo awqaafta, uu mahadsan yahay. wax kasta oo fiican oo wanaagsan oo la sameeyey oo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu sameeyeen, waan uga mahad celinaynaa. waxna waan kusii dhisaynaa, halkaasaan kasii bilaabaynaa. waxaas fiican ee meeshaas laga sii bilaabayo wasiirku ka mid yahay. hadduu fiican yahay, waxaas fiican buu ka mid yahay. haddii uu kursi jaban yahayna, kursiga waa la beddelaya.
aad iyo aad baan runtii wasiirada ugu mahad celinayaa. intaas waa iska kaftan. shaqaalaha iyo saaxiibadayda aan isku wareegnay ee ana laygu soo wareejiyey ayagana laygu soo wareejiyey waxaan ka rajaynayaa shaqo wanaagsan, saaxiibtinimo, ayagana inay soo dhaweeyaan. anigana waxaan ballan qaadayaa in aan si hufan ula shaqayn doono. way dhici kartaa inaan idin soo kallihiyo, way dhici kartaa habeenkii seexda inaad idin dhaho, way dhici kartaa inaan xafiisyadiina soo galgalo, laakiin waxaan hubaa inaan idinka xishoon doono, waxaan hubaa inaan idin respect garayn doono, laakiin waxaan hubaa waxa inoo qoran inaan tadbiiqin doono 100%. dad Soomaaliyeed oo sharaf laa jooga meeshan oo civil servants ah iyo la taliyayaal iyo dad sharaf loo qiimo leh. waxaad ka cabsantaan ma jiro. mid saaxiibkiin oo halkan ka shaqayn jiraa imaaday oo wada shaqaynayna. waxaan mar walba runtii aan ku dadaali doonaa ilaahay idankiis. waddankan waxa hortaagan waa ognahay, maanta meeshuu marayana waa ognahay. maanta ajandaheenna koowaad waxaa waaye dadkeenna dhimashada baahidu ay keenaysa inaan ka badbaadino. si aan uga badbaadinana waa inaan amnigiina aan sugno. marka baahidii oon dadka ka badbaadino, oon abaaraha dadka uga gurmano, iyo abaaro keliya ma ahee berri hadduu daadad yimaadana dee qaylada un kuma jiri karnee inaan xal waara la nimaadno, iyo si dadkeenna aan u badbaadino xal waarana aan ula nimaadno. caqabadaha ugu waaweyn waa kuwa amniga inaan zuulino caqabadaha ay hortaagan. saddexdaas arrimood oo isku duuduuban ayaa priority inoo ah. waxa kaloo dhani way soo daba socdaan, ayaga ayayna kaalmaynayaan. waxaan rajaynayaa dalkani inuu aado prioritiskiisa. wax kale lagama shaqayn karo haddii aan nabadgelyo la helin. meeshaas way meesha bugta Soomaaliya, meesha u baahan xalkuna waa meeshaas. innaga oo heshiisa oo mid ah, innaga oo isku kalsoon, innagu isku tashanayna, waxaa lagama maarmaana inaan u dhaqaaqno sidaan dalkan u xoreyn lahayn. dalkan wuxuu u jihaysan doonaa inuu iska xoreeyo cadowga. waxaan rajaynayaa in loo diyaar garoobo. wasaaradda awqaafta sheekhu hadda uu wasiirka ahaa xil baa saaran. wuxuu xil ka saaran yahay muslimiin baan nahay, ha noo sheegto dagaalka aan meeshaas la gelayno ma sax baa mise waa qaldan yahay, ma baatil baa mise waa xaq. waa inay noo sheegtaa. wasaaradda ganacsiga waxaan ka rabnaa inay businesska abaabusho oo la aado xaggaa loo jeesto. wasaaradaha qorshaynta iyo aan ognahay pillarska ka shaqaynaya, pillarskaas way mahadsan yihiin, waa wadaysiin, laakiin prioritygeennana waa inaan ogaanaa. wasaaradda maaliyaddu waa inay sidaas ogaataa. waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay shacabka Soomaaliyeed inay isxoreyn doonaan. waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay in aan badbaadin doono dadkeenna, kadibna aan gaari doono xorriyad taam ah oo aan dalkeenna ku horumarino, oo aan waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo dhaqaalihii oon kar u qaadna aan ku keeni doono haddii ilaha yidhahdo. isku kalsooni baa loo baahan yahay, niyadda oo la dhisaa loo baahan yahay, soomaalinimaa loo baahan yahay. waxaa loo baahan yahay in wixii horeo dhan la iska halmaamo. waxaa horeo dhan wuu iska dhammaaday. marka bog cusub iyo beijis cusub iyo qalbi cusub oo nadiifa iyo saaxiibtinimo iyo soomaalinimo iyo isjacayl kusoo dhawaada. dhammaantiin aad iyo aad u mahadsan tihiin. waxaanan mar labaad runtii u mahad celinayaa dadka ka soo qaban qaabiyey iyo inta soo xaadirtay oo ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyeyaasha labada aqal. waad mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. aad iyo aad ayuu umahadsan yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane xamse cabdi bare. kelmadiisa kooban ee qiimahana ku fadhisay. hadda waxaan rabaa inaan u yeero oo aan kusoo dhaweeyo isagana si uu kelmadiisa munaasabadan ku aadan u yidhaahdo guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane cabdi xaashi cabdullaahi.
بسم الله الرحمن الرحيم. قدوميها قولها شعبك برايم منسترك عصب هذا إنه وجوجني حلكي لجو ريتناي قدوم برايم منستر كي هره حلك وريجيي برايم منستر كحجينك xubnaha labada aqal iyo xukuumadda ee halka fadhiya iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee sharafta leh hadal dheer jeedin maayo laba nuqtadood ayaan rabaa halkan inaan ka hadlo mid waxa weeye nin ajnabihi erey bishii May 2012 noogu yidhi ninkaasi annagoo guddigii joogtada ah ee baarlamaanka ah waxaanu tagnay dalka la yidhaaho Norway markii aanu tagnay arrintaanu u tagnay waxay ahayd baarlamaanka Norway ayaana casuumay marka 3 qof ayaa annagoo meeshii fadhina noo yimid mid wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Norway labana waxay ahaayeen 2 qof oo arrimaha badda takhasuskoodu uu yahay oo markaas malaha u socday baarlamaankii 8aad waa kii diiday wixii la odhan jiray memorandum of understanding ee Kenya iyo Soomaaliya then fikirkayga yar waxaan isidhi malaha de halkaas u socdaan kii kale nin geologist abuu ahaa wixii kale oo dhan idiin sheegi maayo taariikhda meesha ka dhacday laakiin ninkaasaan rabaa erey uuna yidhi oo aniga maskaxdayda fadhiya projector buu derbiga ku tuuray waxaa ku qoran Somalia is a very rich country oo maxay qani ku tahay waxay qani ku tahay 7 macdanood oo kuwa qaaligihi ku jiraan iyo gaaska dabiiciga ah iyo benziin oo qayr caadi ah ereyga marka halkaan ka soo qaatay wuxuu yidhi oo uu ku gabagabeeyey nabad baad kula soo bixi kartaan ereyga maskaxdayda fadhiistay kaas weeye oo ah ilaa maanta khayraadka dalkeenna ka buuxa ee u baahan inaynu nabad kula soo baxno ayaynu gaari lahayn waxa kale in raacsanaya abwaan Soomaaliyeed baa wuxuu yidhi dawlo ehel bay rabtaa aqoon-yahan bay rabtaa aqoon u leh bay rabtaa maanta waxaan isleeyahay muddo dheer kadib hay'adda fulintu iyo guud ahaan dawladduba waxay heshay dad يعني aan dalkan ka bixin muddadii 30 sano ahayd oo xogogaal dhab ah u ah midi waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo prime ministerka uu inoo doortay oo Xamse Cabdi ah waxaan isleeyahay ereyga abwaanku yidhi ee uu yidhi dawlo ehel bay rabtaa aqoon-yahan bay rabtaa aqoon u leh bay rabtaa waxaan filayaa labaduba waa waaya arag xogogaal u ah dalkan waxa ka dhacayay 30 sano waa 2 qof oo aqoon-yahano ah kolka aqoon
iyo waayo aragnimo ayay leeyihiin. slogankooduna wuxuu yahay Soomaali heshiisa adduunkana heshiis la waxa weeye waxaynu ku taageeraynaa innagoo shicibkii Soomaaliyeed si aynu uga baxno amni darrada haddaynaan nabad noqon. ninka Norwegianka iyo ereygu yidhi ee ahaa khayraadka dalkiina lama soo baxaysaan, waxay noqonaysaa inaynaan la soo bixin sababtoo nabad baan kula soo bixi karnaa. kolka sloganka xasan sheekh habeenkii halkanaynu joognay uu yidhi ahaa Soomaali heshiisa caalamkana la heshiisa baynu rabnaa, iyo habeenkii dhaweyd interviewgii laga qaaday prime ministerka oon dhegaystay ee isaguna ereyadiisii dhammaantood ay tusayeen ina tusayeen inuu yahay hoggaan diyaar u ah Soomaali oo nabada oo heshiisa oo wada jirta in la arko. walaalayaal waxaan filayaa hadal badan ma rabo hadda inaan halka ka idhaahdo. waxay inooga baahan tahay marka haddii ay kolka madaxdii halkaa taagan yihiin de waxa weeye inaynu inagu ku taageerno. waxaa kale erey odhanaya guddoomiye Sheekh Aadan Madoobe golaha shacabka ayuu guddoomiye u yahay oo toos u leh xukuumadda ansixinteeda iyo de waxa weeye shalay hadda prime ministerka iyaga ansixiyey. waxaanse leeyahay labada aqal oo wada shaqeeya oo midihi waxay u noqonayaan iyaga gacan midig oo xoog leh u noqonayaan. sidaa la ajligeed waa inaynu inaguna inagoo wada jirna aan gacan ku siinaa. aad iyo aad baad umahadsantihi. aad iyo aad u mahadsan yahay guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi. haddana waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo oo isaguna uu kelmadiisa halkan ka yiraahdo guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدوميها أقل كسرة رئيس الوزراء عصوب حلك اللي وريقها يومانت رئيس وزاري هوري رئيس وزاري كحجينك لمان لابد القلاء إيو وزير ده حكومة ده لمان كقيب قلياش حفلة ده اللي وريجينته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in ilaahay nabad nagu soo gaarsiiyey anagoo doorashadii dhabka badnayday oo shaki badan laga qabay ka soo guulaysanay oo noo soo dhamaatay oo maanta labadii ra'iisul wasaarihii cusub iyo ra'iisul wasaarihii doorashadaas hormuud ku ahaa maanta isku wareejinayeen ilaahay nabad nagu soo gaarsiiyey. ilaah baan ugu shukrinaynaa alxamdulilah. runtii waxaan mahad ballaaran aan la soo koobi karin u jeedinayaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo xukuumaddiisa iyo dhammaan intii la soo shaqaysay oo maanta maaragtay la dhihi karo doorashada ilaahay nagu guuleeyay maanta maaragtay aan xilka kulli kala wareegayn la'aantooda lama gaarin. sidii arrinta mar la mooday xeer waxaa la islaahataa ra'iisul wasaaraha naftirkiis hadda xilka ku cusub yahay haddiiba helay dad doorashadaba diyaar u ahayn hadduu ku lug daray asaga naftirkiis waa sii dheeraysana waa joogaya la lahaa. marka runtii markuu arkay khatarta soo socoto go-aan wuxuu qaatay wadaniyad la geesanama leh. ilaahay ha ku asturo. ilaahay waxaan ugu barinaynaa in ilaahay khaatamo sansiyo. waa nin dhalinyaro ah waxaan u malaynayaa hilal Soomaaliyeed in dib ugu soo noqon doono.
waqti badan buu wuxuu dhihi jiray markii doorashada baarlamaanka dhammaatay madaxweynaha la doortay namiyow aniga waa daalay baskaan korkiis inaan tareenka inaan ka degaan rabay aawe maxaad u daahdaan buu noo dhihi jiray maahin qof dhihi jiray ma ahayn yacni muddadaan hoogaho ii harsanaanaba dhihi jirin runtii maanta waxaa la soo gaaray maalintii asigoo sharaf leh tartiib maaragtay ugu degi lahaabaa la gaaray marka insha allahu siyaasadda soomaaliya kama degin waxaan ku rajaynaynaa guul iyo wanaag baan ku rajaynaynaa waxaan kale runtii u mahadcelinayaa ciidamadeena qalabka sida saraakiisha dalbadeed iyo dhammaan dableyda xaaladan oo aad u akarnayd markii doorashada la galayay wixii aan isla soo marnay dadaaladii ay soo mareen oo naftooda u horeen habeenii maalin noo taagnaa iyo ciidamada walaalaheen maaragtay amasom oo runtii ayagana markii xaaladda maaragtay shakaga abuurmay siday noo garab istaageen oo ugu beredheliyeen doorashadaas aad iyo aadaan ugu mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraheena cusub waxaan leenahay ra-iisul wasaare soo dhawow waa ku hambalyaynaynaa runtii soomaalida aragti fiican bay kaa qabtaa qof aqoon-yahan ah culmo ah ahludiin ah oo aad wanaagsan inaad tahay iyo soomaali aaminsan tahay waxaan rajaynaynaa intaad hadalka iyo maad bilowday in runtii hadalaad aday noo deegeen waa sidaad u sheegtay dalkeena baahidiisa koowaad waa labada aad hadda hustay labadaas waxay u baahan yihiin dawlad dhexdeedan isku kalsoon caalamkana saaxiib la ah shacabkeennada ku kalsoon ayaa guushaas gaari karaa maxay tahay dadkeena waxaa iskugu darsamay gaajo iyo cadow iskugu darsamay xaqiiqdii cadow dibadda ka yimid siyaasad ahaan dibadda laga keenay laakiin ciidan ka dhigtay dhallinyaradeeni oo la qalday oo waxaan run ahayn diinna ku salaysanayn oo been loo sheegay oo ayagana run mooday dhaqaali yar oo aan badnayn waxaan u taraynin weliba maaragtay looga dhigay in maaragtay wax loo qabanayo marka arrintaas barwaaqada dalkeen hadda uu sheegahay guddoomiyaha waa runtiis barwaaqadaas nabad lagu soo biy in loo helo oo dhallinyarada la duufsaday wixii maaragtay cadowga inay ka haran diideen maha inta kalena in la tuso inay qaldanaayeen nololtoodii hore ka wanaagsan inay qaldameen ku dareemi karaan loo sameeyo kadib markii cadowga maskaxda ka qabsaday laga xoreeyo marka insha allahu sida hadda uu guddoomiyaha sheegahayay guddoomiyaha aqalka sare waa run waa oday waay arag ah waa dini alla yaqaano siduu sheegahayay in hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan ku tali jirnaa baarlamaanka federaalka soomaaliyeed si maaragtay wadajir ah waajibaadka uu leeyahay howlaha qaarkoodana wadajir ay u qabanayaan gaargaarna howlaha qaarkoodana gaargaar ay u kala qabsanayaan siduu dastuurka tilmaamahayo sidaas oona muwaafaqo ku nahay oo aan ummadda soomaaliyeed u shaqaynayno oo aan abuuraynin challenge iyo meele maaragtay shaksi danihiis gaarka ah aan wax ka raadinaynin shuruucda dalka maaragtay qabyada ana la dhammaystirahayo dowladnimo dhaba ummadda soomaaliyeed ku diirsato inaan horseed u noqono ayaa naga go-on haddii aan leedmo insha allah waxaan kaleen runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay dalka sanadkan waxaan is leeyahay imtixaankii soomaaliya ku jirtay waxaa laga yaabaa inaan maaragtay dunuub waaweyn horey aan u soo galnay ummadda soomaaliya haddaan nahay imtixaan weyn aan qabsaday waayo waxaa laga dareemayaa aayadda qur-aankaba waxay tilmaamaysaa wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wixii idin asiibay waa wixii aad gacantiina ku kasbateena ilaahay subxaana wa tacaalaana leeyahay imtixaanka nagu fogaaday waxaa laga yaabaa inaan anigu dembi waaweyn horey u galnay oo imtixaankaasna haysto marka hadda anay sanadkan aniga ku jira uma ammaanahayo markaan arkay odayaasha waaye aragga ah mas-uuliin horey usoo qabtay akhyaar ah kulli maaragtay markaa aragtid qofka kale kasii damqanambaadsan yahay markii lasoo doortay waxaa ii muuqata in imtixaanka ilaahay towbadeen aqbalahayo oo tubti toosanaa maaragtay lugta saari doono ayaan aaminsanahay ilaahay run ha ka dhigo riidaas waa nagu jirta ummadoo soomaaliyeed diiladaas waa qabta ilaahay baan ka barinay in arrintaas run noqoto marka runtii munaasabad maanta ujeedadeedu waxay ahayd ra-iisul wasaaraheenii oo si fiican usoo shaqeeyey meel fiican ummadda soo gaarsiiyey iyo ra-iisul wasaarihii cusbaa kala wareegidooda inaan goobjoog ka ahano wanaxnu ala dalika min ashaahidiin marka aad iyo aada ugu faraxsanahay ra-iisul wasaaraha cusubna waxaan u rajaynaynaa allaha u fududeeyo allaha uu ku guulayo wasiire kheyr leh oo garabkiis istaagahayo oo wadaniyiina ilaahay ha waafajiyo
anuguna waa ku garab istaagi doonaa ra-iisul wasaaraha horena maaragtay waa u ducaynaynaa runtii meel fiican oo aan la iloobaynin iyo asigii saaxiibadiisa dalka soo gaarsiiyeen annaguna xalkii la keenay inaan kasii qaadno oo ummadda soomaaliya dhibaatada ku habsatay sidii ugu baxi lahayd dhammaanteen aan ku wada shaqayno marka ujeeddada ugu weyn intaasay ahayd ra-iisul wasaar waan ku hambalyaynaynaa waan ku ducaynaynaa waan ku garab istaagaynaa guul baan ku rajaynaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad iyo aad u mahadsan yahay guddoomiye aadan maxamed nuur aadan madoobe kelmadiisii ayaa intaa ku ekayd iyadaana gabagabo ahayd waxaan rabnaa laakiin inaan hadda soo dhaweeyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka si uu noogu soo xidho barnaamijka guddoomiyaha xiray dabcan waxaa hadda xigi doona marka labada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre iyo ra-iisul wasaarihii hore mudane maxamed xuseen rooble labadooda ayaa halkan ka bixi doona waxay tegi doonaan xafiiska halkaas oo ay labadooda keliya access u leeyihiin hadda inta kale martida sharafta le waxaan ka codsanaynaa in ay halkooda ku sugnaadaan waxaa jira refreshments si spaceka aan uga faa'iidaysano in tiro aad u yar lagu raacaan rajeynayna haddaa la yidhaahdo aad iyo aad aa umahadsantihiin kasoo qaybgalkeena